salaamu ullaahi calaykum akhyaarta sharafta iyo qiimaha u saaxiibka meel kastoo adduunka dacaladiisa ka joogtaan. Wararkii ciyaarahana caawa waxaa ka mid ah kooxda Manchester United ayaa guul weyn ka gaadhay kooxda Leeds United. Dhanka kale kooxda Barcelona ayaa iyaduna xasuuq waxay u goysatay kooxda Valencia. Kubadda cagta ee Manchester United iyo Leeds United ayaa waxay ciyaar ku soo dhamaatay 4-2. ciyaar daawashadeeda aad loogu raaxaystay, kubad aad u qurux badan, kubad la isbareejeeyay 2 daqiiqo gudahood la isku bareejeeyay, goolna la iskaga dhaliyay, kubad aad daawashadeeda loogu raaxaystay. Manchester United ayay ku soo gaadhay guul aad u weyn kaasoo ciyaartu ay ku soo dhamaatay 4-2 oo ay ku garaacdeen kooxda Leeds United ay ku sii xijisteen kaalintooda afraad ee horyaalka Premier League. ayaa ahayd markii Manchester United ay la hormartay 2 gool kaasoo 2 daqiiqo gudahood lagu bareejeeyay. Ayna kooxda Leeds United la timi 2 gool oo degdeg ah kaasoo ay kaga naxsadeen kooxda Manchester United oo wadnuhuba istaagi gaadhay caawa hal mar, laakiin waxay ku baxsadeen ciyaartooydooda ay badalka ku soo galiyeen kaasoo uu isticmaalay khibrad uuna ku badiyay ciyaartan, waxayna ku soo dhamaatay 4-2. gool oo 4 ciyaaryahan oo kala gedisan ay u kala dhaliyeen kooxda Manchester United ayay guushan ku raacday. goolkii ugu horeeyayna waxa uu dhaliyay kabtankooda Maguire kaasoo soo afjaray dhibaatadii ka haysatay xagga koornada la soo tuuray ee Manchester United kaasoo ayna wax koorna ayna dhalin dheer kaasoo ay ku qaadatay 139 koorno oo ay Manchester United wax goola ayna ku dhalin koornooyinka ay helaan. kabtankooda ayaana soo afjaray kaasoo indhawad culays ku saarnaayo heer la marinayay in laga qaado kabtamnimada. maanta ayuu maxaa la dhahaa kooxda Manchester United u dhaliyay gool madax ahayd aad u xoog badan. kooxood ayaa haddaba waxay soo bandhigeen kubad aad u heer sareysa kaasoo daawashadeeda lagu raaxaystay, dadkii daawadayna ay ka heleen. ciyaartan ayaa waxay ahayd ciyaar weerar iyo weerar celisa oo ay labada kooxoodba soo bandhigeen kubad aad u heer sareysa. khadka dhexe ee heer Portugal Bruno Fernandes ayaa isaguna gool kale u dhaliyay kooxda Manchester United. qaybtii hore ay ku soo dhamaatay 2-0 ee hogaanka ku hayso kooxda Manchester United. ciyaarta markii la isku soo laabtay ayaa kooxda Leeds United waxay ku soo gashay dardar xoog leh kaasoo ay la timi 2 gool oo degdeg ah daqiiqadihii 53 ilaa iyo 55. Rigo ayaana goolka u dhaliyay kooxda Leeds United. gool toogasho ah oo uu ka toogtay dhinaca bidix uu ka soo toogtay goolkii uu waardiyaha ka hayay De Gea. kooxda Manchester United haddaba goolka ay maxaa la dhahaa isle kooxda yar waa burbursanaysan oo caawa ayaa kaga taqalusaysan nimanka aadka u xariiftantaan ee Leeds United ayaa haddana 2 daqiiqo gudahood haddana waxaa lagaga naxsaday kooxda Manchester United goolkii labaad kaasoo la yaab ku sii noqday kooxda Manchester United oo ay qaadan waayeen. goolkaasoo isaga laftigiisa laga soo fiiriyay faarta maadaama ay ku doodeen kooxda Manchester United inuu maxaa la dhahaa khalad ka horeeyay goolkan kaasoo ay dhaheen wuxuu khalad ku galay Bruno oo dhulka ku dhacay. waxaa dhaliyay Robinho kaasoo daqiiqadii 54 goolkan uu u dhaliyay kooxda Leeds United. Manchester United ayaa haddaba wuxuu bedel ku sameeyay shaxdiisa kaasoo uu ka saaray ciyaarta Pogba, ciyaarta soo gariyay Fred kaasoo ciyaarta isbedel weyn ka sameeyay. 3 daqiiqo oo kaliya markii garoonka ku jiray ayuu goolka haddaba u dhaliyay isagoo hogaanka u soo celiyay kooxda Manchester United. oo yaaban oo isla talow caawa ma barashadaas ay ku dhamaan doontaa mise idinka ayaa la idin cuni doonaa. ayaa haddaba ninkaas 3 daqiiqo oo kaliya oo ciyaarta uu ku jiray wuxuu u dhaliyay kooxda Manchester United isagoo maxaa la dhahaa ku celiyay hogaanka kooxda Manchester United. dambayn waxaa guushan u go'aamiyay kooxda Manchester United Elenga oo isaguna bedel ku soo galay kaasoo goolka afraad u dhaliyay daqiiqadii 88 ayeen bedel lagu faa'iiday maadaama uu isaguna bedel ku soo galay. tababaraha Manchester United ayaa wuxuu sameeyay ciyaartan isbedel weyn uu ka sameeyay maadaama uu maxaa la dhahaa uu sameeyay bedel rag cusub iyo dhig cusubna uu soo galiyay garoonka kaasoo 3diisa dhibcood u xaqiijiyay kooxda Manchester United. waxaana la arkayay isagoo aad u dabaaldegayo oo faraxsan maadaama uu soo gaadhay guul weyn. sidoo kale waxay waxyeelo soo gaadhay laacibka Elenga oo gool u dhaliyay kaasoo waxyaalaha kor laga soo tuuray ee dhalooyinka sidoo kale ay madaxa kaga dhaceen. waxaana la arkayay dhakhaatiirta oo caawinaya laacibkan da'da yar ee uga ciyaara weerarka kooxda Manchester United
ay Manchester United soo gaadhay ayaa waxay ahayd guul weyn maadaama ay kaalintooda afraad sii xaqiijiseen waxayna ka fogaadeen kooxda West Ham iyo Arsenal oo iyaguna ku jira shanaad iyo lixaad kale kooxdii Barcelona ahayd ee European League ka ciyaaraysa hadda waa Barcelona beriga hore Champions ka ciyaaraysa taqaanay Barcelona hadda European League ka ciyaartana la aragiye suuq weyn u geysteen kooxda Valencia kaasoo ay 4-1 ku garaaceen waxaana goolasha caawa akoonka Barcelona ee goolasha furtay لاعبكي هير أرسنال أرتيتا كباعية أرسنال وميان كاسو لبا جول وصحيحي كوحدة بارسينولا أيها هدبا waxay soo gashay kaalinteeda afraad ee horyaalka La Ligaha soo dhinac taageen oo la simeeyeen kooxda Atletico Madrid kaasoo dhibcaha ay ka simeeyeen laakiin farqiga goolasha ay ku kala sareeyaan kooxdan Barcelona uu hogaamiye laacibkoodii hore ee Xavi Hernandez ayaa caawa wuxuu soo gaaray guul weyn waxaana ciyaarta ku soo galay ciyaar shaxdeedu xoogan tahay soo bandhigay kubad aad u heer sareysa ciyaartana ay gacanta ku hayeen waxayna xasuuq weyn u geysteen kooxda Valencia Aubameyang ayaana goolasha ku furtay maxaa maalinba nin Arsenal ka tagay lagu faa'iidaa laacibka Arsenal ka tagay ayaa lagu faa'iidaa kooxda Barcelona caawa waxay ku baxsatay laacibkii Arsenal hore hadeed u ogeed Arsenal iyadoo Van Persie iyo Fabregas iyo ninkii la oran jiray Thierry Henry iyo rag lagu faa'iidi jiray hadeerna waa caawa Barcelona waxay ku faa'iiday Tete baaciyo yiri war aniga ima qalantid meeshan uma qalantid iskaga tag fala Imaaraad baa la dhahaa meeshan Arsenal baa la dhahaa wayna iskaga tagtaa hada ninkii baa caawa lagu faa'iiday oo gool intuu dhaliyay sida laba gool intuu dhaliyay sidaas u laba rogay sida ninkii saaxiibka jaamac laga qariyo ninkaas caawa faniska Arsenal caawa cadaq raacan seexan maayaan habeenba nin naga tagay baa lagu faa'iidayaa bay leeyihiin kale laacibka Dijon ayaa isaguna goolka u dhaliyay weyn ayuu ahaa Badri ayaa isaguna goolka ku tuurtay habeenkan caawa habeen aad u weyn buu ahaa Barcelona ay ku soo gashay kaalinteeda afraad iyagoo maxaa la dhahaa nimankii Barcelona ee lagu yaqaanay horyaalka ay qaado oo kaalinta koobaad iyo kaga jirtay horyaalka La Liga hadda kaalinta afraad baa sanadka la cadhiirsanaya kubad aad u heer sareysa oo ay soo bandhigeen kooxda Barcelona oo lagu raaxaystay waxay ku heleen guushan weyn oo ay ka gaadheen kooxda Valencia waxayna ahayd kubad ay inta badan gacanta ku hayeen kooxda Barcelona